Assalaamu calaykum kusoo dhawaada janalka maalmaha. Waxaan idinla wadaagaynaa qiso aad u cajiib ah. Qisadani ayaa waxay dhex martay laba wiil oo saaxiibo ah. Labadan wiil ayaa waxay wada dhigan jireen jaamacad, waxayna ka baran jireen jaamacadda kulliyadda dhaqaalaha. Labada wiil mid ka mid ah wuxuu la noolaa reerkiisa, wuxuuna haystaa dhaqaale fara badan, halka midka kalena uu ahaa mid iska duruufaysan aan wax dhaqaale qabin. Labadan wiil saaxiibo ayay ahaayeen, nolosha ayaa u dhaxaysay, jaamacadda ayna wada dhigan jireen. Muddo ka bacdi waxaa dhacday wiilkii faqiirka ahaa inay la soo dirisay duruuf adag, taasoo gaarsiisay inuu go'aansado inuu jaamacadda iska joojiyo. Markaasuu wuxuu la tashtay wiilkii saaxiibkiisa ah oo ku yiri, "Niyow, anigu ma haysto wax dhaqaale ah, sidaa darteed waxaan go'aansaday inaan jaamacadda iska joojiyo." Wiilkii ayaa ku yiri, "Niyow, wax go'aan ah qaadanin, ilaa amar dambo aniga ayaa jawaab ku soo siinayo." Wiilkii waa uu baxay, wuxuuna u tagay aabihii oo ku yiri, "Aabbo, waxaa jiro wiil saaxiibkay ah oo ila dhigtay jaamacadda, mana haysto wax dhaqaale ah, sidaa darteed waxaan rabaa inaad ka bixiso jaamacadda." Aabihii ayaa ku yiri, "Intee lacag oo looga baahan yahay wiilkani?" Wuxuu u sheegay inta lacag oo looga baahan yahay jaamacadda. Aabihii ayaa ka wada shubay lacagtii oo dhan. Wiilkii sidaa ayuu ku sii watay waxbarashadiisii. Markii jaamacadda wada dhameeyeen ay shahaadadii soo qaateen ayuu wuxuu ku yiri ninkii saaxiibkiisa ahaa, "Niyow, anigu fadhi iima yaalo, maxaa yeelay wax dhaqaalaana ma haysto, waxaan ku qasban inaan shaqo raadsado, noloshiina wax ka bedelo, sidaa darteed waxaan doonayaa inaan shaqo raadsado." Sida ay ku kala tageen. Muddo ka bacdi waxaa dhacday wiilkii in Allah subxaanahu wa tacaala uu faray noloshii, waxa uu helay shaqo, noloshiisii ayaa isbedeshay, Allahna wuxuu siiyey dhaqaale fara badan. Isagoo nolol fiican ku jiro ayuu maalin wuxuu ku fikiray inuu soo booqdo ninkii saaxiibkiisa ahaa. Ninkii saaxiibkiisa ayuu soo aaday, balse waxaa dhacday wiilkani ku noolaa nolosha fiican, aabihii ayaa dhintay, wuxuuna ka dhaxlay lacagtii. Wuxuu bilaabay inuu ku tumayo lacagtii. Ninkii saaxiibkii markii uu yimid ayuu wuxuu arkay ninkan inuu ku jiro nolol aan wanaagsaneyn. Markaasuu wuxuu go'aansaday inuusan la kulmin maadaama uu ku jiro waxaan wanaagsaneyn. Sida ayuu uga laabtay. Muddo ka bacdi waxaa dhacday wiilkii sidii ugu tumanayay xoolihii aabihii ayaa lacagtii ka dhamaatay, waxaana soo wajahday duruuf adag. Kaasuu aad u yaabay, noloshiina ku adkaatay. Maalin isagoo meel fadhiyo ayaa dad waxay ku yiraahdeen, "Niyow, ma ogtahay ninkii aad saaxiibka ahaa jirteen in Allah subxaanahu wa tacaala uu furay nolosha, dhaqaale fiican oo haysto?" Wiilkii wuxuu ku fikiray in ninkii saaxiibkiisa uu aado. Xafiiskiisii ayuu ugu yimid. Markii uu la kulmay ayuu wuxuu rajeynayay in gacan furan lagu soo dhaweeyo, balse wax jawaab lama siinin. Meeshii ayuu iska fadhiistay. Muddo markuu fadhiyay ayuu ku yiri, "Niyow, maanta adiga ayaan kuu socday, duruuf ayaa haysato, waxaan rabaa inay gacan qabato." Wiilkii saaxiibkiisa ayaa ku yiri, "Niyow, waxba kuma qaban karo." Aad ayuu u yaabay. Kaasuu wuxuu ku yiri, "Niyow, soo ma ogid markaan jaamacadda wada dhigan jirnay inaan kusoo gacan qabtay waxbarashada kaa bixiyay?" Kaasuu ku yiri, "Niyow, waxaasoo dhan waan la socdaa, waan ogahay, balse waxba kuma qaban karo maanta." Aad ayuu xanaaqay, wuxuuna bilaabay inuu caytamayo oonu leeyahay, "Niyow, abaal ma lihid, abaalkii aan ku galana ima aadan gudin, nin xun ayaana tahay." Sida ayuu uga soo isagoo waddada socdo ayuu wuxuu ku fikiray maadaama noloshu ku adkaatay, wax dhaqaale uusan haysanin, meel wax ka bilaaba uusan garanaynin, inuu naftiisa dhaafsiiyo. Isagoo ku fikiray inuu isdilo ayaa waxaa u yimid laba nin iyo haweeney wada socdo. Kaasay wareysan xaaladiisa, qisadiisa ayuu uga sheekeeyey. Kadib waxay ku yiraahdeen, "Niyow, ka war maadaama aad tahay qof wax bartay, haddii aan shaqo ku abuurno?" Wuxuu yiri, "Waxba kama qabo." Sida ay ku soo wadeen, heshiis ayay la wada galeen, wuxuuna bilaabay inuu u shaqeynayo. Waxayna ku heshiiyeen dhaqaalaha uu soo saaro 30% inuu qaato, inta kalena iyaga ay qaadanayaan. Ninkii shaqo ayuu bilaabay, noloshiisii way isbedeshay. Muddo ka bacdi markii shaqadu u toostay u kala kacday ayaa haweeneydii waxay ku tiri shaqada siisay, "Niyow, waxaan doonayaa inaad ii shaqaaleysiiso gabar aan aniga dhalay." Wiilkii wuxuu ku yiri, "Waxba kama qabo." Sidii ayuu gabartii shaqada ku siiyey. Muddo ka bacdi waxaa dhacday markii gabadhii shaqadii muddo joogto ay wada shaqeynayaan ayay gabadhii wada sheekaysteen. Kaasii wuxuu ku yiri, "Ka waran haddii aan isguursano?" Gabadhii ay ku tiri, "Waxba kama qabo, balse hooyadii ayaan u bandhigayaa." Gabadhii hooyada ay u tagtay, arrinkii inuu sheegtay. Hooyadii way waafaqday. Waxay go'aansadeen inay wada dhigtaan aroos. Arooskii ayaa waxaa dhacday in wiilkani xaflad ballaaran uu sameeyey. Kaasuu wuxuu martigeliyey dadkii deganaa meesha dhan. Invitooyin ayuu qaybiyey, balse wuxuu u sheegay dadka qaybinayo in ninkii saaxiibkii ahaa aan xafladiisii uusan ka soo qayb galin, wax invitaan aan loo geenin. Xafladii ayaa la isugu yimid. Markii goobta la yimid ee la bilaabi rabay xafladda ayuu wuxuu arkay ninkii saaxiibkiisa oo dhex fadhiya meesha. Aad ayuu carooday. Markaasuu microphone qabsaday wuxuu yiri,
niyow maxaa ku keenay meeshaan waad ogtahay waxaad igu samaysay noloshiidii baad baabi'isay maxaad ii daba joogtaa weli waxaan kaa codsanayaa niyow inaad iga baxda meesha markaasuu wuxuu ku yidhi niyow ma dhammaysatay markaasuu ku yidhi haa wuxuu yidhi ii ogolow inaan microphone ku hadlo markii la siiyey microphone ayuu wuxuu ku yidhi niyow marka hore ii ogolow inaan hadlo markaasaa loo ogolaa microphoneka markaasuu wuxuu ku yidhi niyow waxaan kuu sheegayaa xafladda maanta aad dhiganayso qofka aad guurso rabto waa walaashay haweenta ku siisana waa hooyadii shirkaddan aad ku dhex jirtane aniga ayaa iska leh ee iga dhex baxa wiilkii aad ayuu u yaabay markaasuu wuxuu ku yidhi niyow abaalkaagii maanan iloobin oo waan xasuusanahay maalinkii aad ii imaanaysana kuma aan jawaabin sababtuna waxay tahay waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a inaan guriga kugu soo booqday kaasaan waxaan ku imid adiga ku jirto xaalad aan wanaagsaneyn sidaa darteed waan kaa soo laabtay markii aad ii timid waan awooday inaan ku siiyo xoogaa lacaga balse waxaan ku fikiray haddii aan ku siiyo inaad kula laabato meeshii aad ka timid oo dib aad ugu tumato sidaa darteed waxaan ku fikiray inaan nolosha wax ka bedelo markii aad iga soo tagtay labada nin iyo la kulmaysa naagta aniga ayaa kuu soo diray shaqada aad maanta haysana aniga ayaan kuu abuuray taasina waxay ahayd ujeedadan ka lahaa inaad noqoto qof wax qabsan karo waan awooday in lacag ku siiyo bal sababtan kuu siiyo waxay ahayd waxaan ku fikiray inaadan isbeddel samayn doonin balse maanta waxaan u jeedaa inaad isbeddel cusub aad samaysay noloshaadana aad wax ka bedashay mustaqbal wanaagsanna aad maanta gacmaha ku hayso qisadani intaa ayay ku eg tahay qisadani waxaan ka faa'iideynaa haddii aad doonayso ruux inaad wax u qabato ha isku dayin mar waliba inaad wax siiso balse waxaad isku daydaa inaad shaqo abuurto ama wax u abuurto si uu wax u qabsado sidoo kale waxaan ka faa'iideynaa qisadani haddii abaal lagu galo inaadan mar waliba iloobin maxaa yeelay bani'aadamku wuxuu caado u leeyahay markii abaal loo galo inuu marka dambana uu iloobo waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan haddii aad ku cusub tahay janalka maalmaha fadlan subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan waxyaaba cusub aan soo dhigi doono mahadsanid